halkan waxaan rabay mid yar inaan ka ilaahdo keliya. Eh, waa ku salaam walaal. Waa ku arkaa sadiiq. Waa ku salaamay aad. Em, hadda shaqadan jooga wax yar baan halkan rabay inaan ka ilaahdo. Waxaan rabay halkan ka ilaahdo keliya waxa weeyaan em, dadkeena dadkeena Yurub jooga amba wadamadan adduunka jooga, Yurubta amba wadamada reer Yurubka, iyo dadkeena Soomaaliya jooga midaan ku kala duwanahay waxay tahay eh, annagu waxaan aragnay dhaqamo kala duwan, culture kala duwan. eh, qofku wuxuu haystaa inuu madax bannaan yahay fikradiisa, qofku madax bannaan yahay sexualkiisa. bulsho badan baad la kulmaysaa. eh, eh, fikradaada laguma caburinayo, laguma dhahayo waxa ma dhihi kartid, sidaa uma dhihi kartid. laakiin bulshadan dhibta ugu weyn ayna haysataa waxay tahay waa lagu caburinayaa. qofka looma ogola fikradiisa inuu dhiibto, qofka looma ogola inuu feelingkiisa sheegto. caqabado badan baa bulshadeena jira. Eh, wallahi dhib weyn weeyaan, dhib weyn weeyaan. Eh, sidee markaa qofku eh, noloshiisa u badbaadi karaa? qofku siduu habbuu noqon karaa? qofku siduu madax bannaanaan karaa? qofku siduu magaranaysa caafimaadkiisa, feelingkiisa iyo dareenkiisa uga shaqayn karaa? wax walba waxay ku saabsan yihiin maaragtay bulshadeena. qofka kalaa kaa mas-uula, qof kala kuu taliya, qofka kalaa fikradiisa, adu fikrad gaara malid, qof kale fikradiisa ku nooshahay. waxaan ku leeyahay waa manipulation weyn weeyaan. ma garanayo af Soomaali manipulation wax lagu dhaho. marka muhiimada meesha uga socda waxay tahay de keliya ku kala duwanay dadka Yurub jooga iyo America iyo dadka Soomaaliya jooga waxay tahay anagu qofku xor buu u leeyahay inuu fikradiisa soo dhiibto isagoon la dilaynin, isagoon la caayaynin, isagoon ma garanaysaa cadaabta loo diraynin. wallahi anaga shakhsi ahaan aniga anaga waxa cadaab noo ah bulshada Soomaalida u dhibtay nagu hayso inta laagtay, taas baa cadaab noo ah. waayo qofka markaa qofkaa tahay jacaylkaaga fikrad dareenkaaga laguu diido, taas baa anaga cadaab noo ah. marka cadaabtan aakhiraad sheegaysid, cadaabta adduunka ayaa ka weyn ee adigu dadka Soomaali ka mid ah nagu hayaan. waa aragtay pagekayga hadda markaa gashid waxay cayi aflagaaday soo qorayaan. dadka ay caayi aflagaadaynaya intay ka tira leegyihiin waa dadka jannada u socda, waa dadka ilaahay u hadlaya. bal ilaaha ka waran, bal ilaaha dadkaa Soomaalidu rumaysayin ka waran. ilaahay inuu saa edab darayaha ma u malaynaysaa? inuu ilaahay qof minority sidaa hoos ugu dhigayo caayu aflagaadaynaya ma u malaynaysaa? qof bili-aadan leh waa la dhibaya, dhibtaa layga daayo, inuu ilaahay sidaa u xun yahay ma u malaysa? walla anuu diinta Soomaalida haysato waan ka yaaba. meesha ninkii gaalka ahaa ku leeyahay xuquuq baad leedahay, bili-aadan baad tahay, oo inaan ku dhibaataya ma doonayo. ninkii muslimka ahaana aad aragtid dhibtii kuga haya intay laeg tahay, uu ku leeyahay waa ku qarxinayaa, dilbaad ku xukuman tahay, waxa lagu samaynaya aflagaado, waxa lagu samaynaya hay, waxa lagu samaynaya waa bahdil. qofku xad ma laha, qofku xad xidha ma laha. haddana muxuu ku leeyahay ilaahay ka qabsa, ilaahay kusoo hadeeyo. anuu tan la yaabsanay waa tahay qofku intuu ku ayuu kusoo dhamaynaya ilaahay kusoo hadeeyo. oo adigana goormaa lagu soo habeynaya? adigu waxaanaad samaynaysid ma janna? wallahi dadkeena anuu talada u haya ugu weyn waxay tahay qof walba intaa muraayad qaadatid isku eeg adigu oo isdhegaysa bal waxaad leedahay. horta intaa qof kale waxu sheegin, adigu isdhegaysa waxaad leedahay. wallahi dhib weyn baa ina haysataan ku dhaha. anigu waxaan wadaa ma aha, anu ma fidinayo qof LGBT nimiyo xafidinaya maahi. dhibtii anigoo yar oo ilmo yaroo caruur laysoo mariyaan ogahay. dhibta caruur badan oo Soomaaliya haysataan ogahay. dhibta bulshadeena qayb ka mid ah haysataan ogahay. sababtaa awgeed baan rabaa inaa qof aan cod lahayn cod siiyo. waayo anuu cod baan lay, laakiin qof aan cod lahayn cod siiyo. taa weeyaan sababta aan aniga halkani keentay. maaragtay rafaadka intaa laga marinaysaa. waayo anuu markaa ilmo yar ahaa ee Soomaaliya joogay cod maan lahayn, waa lay dhibaateyn jiray, maalin kasta waa lay dhibaateyn jiray. waxaan samayn jiray ma jirin, waxaan fidin jiray ma jirin. markaa sababta aan tiktok hadda usoo galaan social mediaha ugu jiraa, waxaan rabaa inaan qof aan cod lahayn cod siiyo.
marka dadkan iska hadlaya oo dhan waxaana sheegayaan oo dhan anu waa ogay waxay ka hadlayaan ino welina dhibti way socotaa welina dad baa la dhibaateynayaa internetka waa aragteen dadkiina ka daawada weli dad baa la dhibaateynayaa weli dad baa la dilayaa weli dad baa laleeyahy waxaa tahay khaniis weli dad baa leeyahy waxaasaatay weli waa la dilayaa hoos baa loo dhigayaa weli dad baa leeyahy midgaan baa tahay caruurta soomaalidu xuquuq ma laha ilmaha ir xuquuq ma laha haddaad ka yara duwantaan kulahay haddaad il la-adahay haddaad lug la-adahay haddaad handicap kala haysatid waa ogtiin bulshadeena sida loola dhaqmo gormaa fakerana cod siinanaa keena jilicsan wallahi runta maalinta qof bilaa-aadan ah ku raacdid cadaalad darro oo qof kaloo soomaaliya walaalkaa isagoo dulminaya oo hoos u dhigaya aad ku taageertid amba isku qabiil ahaada amba wax kale ku heshiiya waxaad ogaataa berina aday ku taalaa wallaahi maalinta cadaalad darro qof ku taageertid waxaa ogaataa beri toolana adiga lugahaaga dhexdooday taallaa qofka cadaalad darrada qofka kale ku sameeya bahdilay waxaa ogaataa beri inaynu ku bahdilayo ani hada jeer dadka igu dhibta badan la halkan waa dumarka anu su-aasha saa mar walba isweydiiyaa nimanka badana ima maagaan ima caayaan dumarka ay caayaan sababtaas weli waa ka fikerayaa ma kuntaleynimada waayo waxa la yidhi moogtahay bulshada had iyo jeer marka hoos lagu dhigo ani marka hoos lay dhigiyo waxaan isku haysta inaan qof kale ka liito waayo dumarka badanaa waxay igu maagaan adoo nin ragaad naag noqoto waxay haystaa inay naagnimadu wax liito tahay waxay haystaa naagnimadu inay ninka ka liidato war qof bilaaadana ka liita adduunkan ma jiraan haddaad ilaaday haddaad lug laaday haddaad naag tahay haddaad nin tahay haddaad jegey tahay haddaad midgaan tahay haddaad wax kasta haddaad jareerta haddaad wax kasta tahay qof bilaadanaa tahay haddaad caddaan tahay maalintaad dalatay ilaahay qof bilaaadana kaa dhigo xuquuq dhammaystiran ku siiya wax kaa maqani ma jiraan kuma noqon doontid wax labada lugood dhexdooda ku yaalla qof bilaadan waxaa qof bilaadana ku tahay qof bilaadan hatuu fakerayo indha leh oo dhega leh oo wadna iyo beer iyo sabab wax badan oo caqli badan oo fikeri kara taas baa bilaadan ku tahay so aan taas ogaano dhammaanteen isku naxariisano qof walba qof kaa jilicsan u naxariiso qofka la dulmiya u naxariiso qofka aragti walaalkaa la dhibaatinaya gacan qabo taas baa adduunka horumar ku gaareen adduunka sharciyaha loo sameeyey qofka jilicsan qofka handicapta adduunkan waxa loo sameeyey baarkering bilaashu leeyu gaarigiisa dhigto anu baarkering ma lihi laakiin dowladda xaq wuxuu istay inuu baarkering gaara isagu leeyu baawarkiisa dhigto qofka indhahala muraayadda bilaash baa lagu siiyaa dadkeenu iminka ninkan commentkaadka igu sameynaya lahaa waxaan fidinaya LGBT nimo haddaad bejkiisa gashidaad eegtid waxaad ku arkaysaa inuu leeyahay lotarigii maraykankaa bilaabmay qofkee raba inuu lotary ku guulaysto maraykanka haddaad tagtid madax banaanida halkan ka jirto kalaa ka jirta qofku codkiisoo kalu leeyahay codkii qof walba fikradiisu dhiibanaya marka qof soomaaliya sidaa u fikeraya tahay ee dictator tahaan rabtid inuu qof kale fikradiisa soo jeedin karin ma inaa maraykan sidaa uu halkaa kaliya ka odhan karo u malaynaya hadduu maraykan tago maraykan cadaalad baa ka jirta